الحمد لله رب العالمين. guul weyn ayaa maanta la gaaray ciidamada maamulka Puntland maanta guusha ugu weyn bay soo gaareen kadib markii ay talisya aad u tiro badan ay kala wareegeen ciidankii Daacish ee buuraha ku dhumalaysanay taliska ugu weyn ee Turma Saleh ayaa maanta gacanta lagu dhigay iyadoo ognahay maanta meeshaas in dagaal aad u kharaar inuu ka dhacay haddaba qodobkaasi aan falanqeyn doonaa qaar ka mid ah askarta Puntland oo ay lafta maanta dhaawac ka soo gaaray miino la qaraxday iyadoo waa ka hadleynaa maamulka Jubbaland ayaa waxa ay si weyn u garab istaageen ciidamada maamulka Puntland iyo dowladda Puntland iyagoo sheegay inay hiil iyo hool labadu ay la garab taagan yihiin oo wax kasta oo uga baahdaanna ay la garab taagan yihiin sidoo kale laba gabdhood oo Soomaaliyeed baa dalka Norway yaa lagu xukumay kadib markii lagu eedeeyay inay Daacish ay la shaqeynayeen oo 2013 ay Suuriya Daacish xilli ka soo baxday ay tageen intaasaan barnaamijkan ku soo qaadan doonaa deebiga muuqaalka la wadaaga saaxiibadii xarunta madrasatul nuurul yaqiin waxa ay kugu bishaaraynaysaa in la soo kordhiyay qaybta daarul qalam oo lagu barto quraanka kariimka iyo culumta shariicada oo lagu barayo nidaamka fogaan aragga ama online-ka daarul qalam waxay cilmiga ku bixisaa luqadaha Soomaaliga Carabiga iyo Ingiriisiga oo si gaar ah loogu danaynayo qurba joogta daarul qalam waxa kuugu sugan macallimiin aqoon durugsan u leh cilmiga ay barayaan iyo sidoo kale la tacaamulka ardayda yar iyo weynba daarul qalam hoyga aqoonta iyo tacliinta diiniga wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir nambarada shaashada ka muuqda haddaan ku bilowno maalmahan waxaan ka hadlaynay guulaha waaweyn ee ciidanka Puntland ay gaareen iyo weliba weerarkii ay ku hayeen nimankii Daacish ee buuraha ku dhumalaysanay maalimadii shalay waxay ogeedeen in nimankii goobtii ay ku jireen in mataqaanay dhinacyo laga soo xiray oo meel oo ah in la geliyay oo ay ka baxsan waayeen waxaa kaloo loo diiday saadka iyo wax walbaba inuu gaarana waa laga ilaaliyay oo waxaa la geliyay mataqaanay waxa la yiraahdo inxisaar yaa la geliyay nimankii nin taliye ciidan oo la yiraahdo Faad Xanaan oo nin aad u qiimo badan iyo askari kale oo la socday iyagoo lugeynayo yaa miina la qaraxday maanta dhaawac waa soo gaaray Ilaahay matana ha caafiyo haddii uu geerido kulli janna ayuu helayaa oo waayo nin dadkiisii diintiisa u dagaalamayay ayuu mataqaana ayuu ahaa oo dad soo duulay oo gardaranna la diriiray marka Faad Xanaano laba way soo baxayeen laba raayi way soo baxeen mid taas aniga ku kalsoonaa oo helay in asoon gaari wadanin oo ay lugeynayaan inay miina la qaraxday oo asaga askari kale dhaawac ay gaareen warkalna wuu jira waxa la leeyahay asaga iyo askar gaari ay saarayeen in baashan droniska in lagu qarxiyay iyadana warkaas oo soo baxay laakiin aniga midkan dambe aad ilo weyna oo mar dhow aan helay ayaa ii soo baxay marka على كل حال واحد نقطة nimanka halkaas maanta ku waxyeeloobay laftooda oo ma aysan tagin meesha inay bariisi hirib ka soo cunaan waxay u tageen laba mid ama inay geeriyoodaan ama inay gobonnimo ay ku noolaadaan intay gudnimo ku noolan lahaayeen taasay doorteen marka nimankii saldhiggii ugu weynaa ee Turma Saleh yaa hadda matana gacanta laga dhigay oo laga qabtay deegaano kale oo fara badan matana sidoo kale waa loo sii socdaa ciidanka habeenii maalinba way mataqaanaa way dagaalayaan oo meesha iyada waxa ka socdo aanan caadi ahayn waa meesha Donald Trump uu ka hadlay oo uu yiri boortaas waxa ka soconay wax caadi ma aha ciidanka Puntland nafurad bay mataqaanaa sameeyeen waayo niman muddo dheer meeshaas lagu ururinayay lagu hayay u baac dhigeen oo ay iska dhiciyeen meel iska saareen haddana arkaysaan meesha uu wax sii marayo iyo guulaha waaweyn la gaaray marka wax aad u weyn qodobka isaga ah halkaasaan ka tagaya maamulka Jubbaland oo ognahay isaga laftiisa inay siyaasad adag inay ka haysta dhanka federaalka oo Xasan Sheekh dhan walba ka qabatay ka dhawaateeyay haddana umaysan diidin inay walaalahood Puntland inay garab istaagaan oo garab ay u noqdaan wayna ka hadleen wasiirka waxbarashada ee maamulka Jubbaland Ugaas Cabdinaasir ayaa ka hadlay Seraar Ugaas Cabdinaasir ayaa ka hadlay oo sheegay in
maamulka puntland walaalahood inay hiili hoob la garab taagan yihiin xataa hadday ciidan ka dalbadaan inay geen doonaan wax alli waxay garab saag uga baahan yihiin walaalada puntland inay siin doonaan anagoo og buu jiri weli dhibaatada naga haysata federaalka iyo weliba qudoqodeentana lagu hayo saasoo ay tahay haddana dagaalka meeshaas ka socdo nimankaas lagula diriraya xaqa ay ku taagan yihiin puntland nimankan xaqdarrada ku taagan yihiin inaan ka garab siino waxaa yidhi waa waajib saaran waana gudan doonaa taas marka waxaad garan kartaa in jubbaland lafteeda ay qaadatay go-aan adag oo ah in puntland lala gaaro gurmad deg deg ah oo dhan walba ah puntland iyada ma dalban gurmad laakiin dee damiirkan ku siinaynin walaalka oo la dilayo inaad korka sheeda ka fiirsato damiirkan ku siinaynin waa midda keentay arrintaas inay jubbaland maanta ay ku dhawaaqaan taas marka waa tii jubbaland laba gabdhood oo soomaaliyeed oo muddo dheer maxkamadooda ay socotay dalka norway ayaa maanta la xukumay gabadhahaasi waxaa lagu eedeeyey inay daacish ay u baxeen 2013 xilligii ay soo baxeen oo la yidhi waxaa jira islaamkii waa dib usoo noqdo ardu sham buu mataqaana dib dagaal uga qarxay waana xilligii nabigu uu sheegay in mataqaanaa la guuleysan doono mahdiga uu soo degi doono marka nin kastaba arrintii runba la mooday maxaa la yidhi bal nusrigaas iyo abaakii ka qayb qaata marka gabdhahaasi inay waagaas meesha ay aadeen yaa la sheegay kadibna ay ku hungoobeen oo meesha wax ka jiray aysan jirin iskaga soo noqdeen marka norway maxkamad in badan kaga socotay marka dhici karta in lagu been abuuranayo gabdhahaasi dhici karta in arrinta la sheegay inay sax tahay lafteeda laakiin maxkamad kolley muddo dheer soo socotay ayaa maanta xukunkeedii yaa dhacay marka calaa kulli xaal nimankan argagixisada ah ama shaab ha noqdaan ama ha noqdaan daacish inta badan waxay kusoo gabadaan magacyada diinta ay kusoo gabanayaan waa mid dad ku dhibaateeyeen ku ihaaneeyeen ay wax walba ku sameynayaan magaca diinta yaa la dhibaateeyey marka magaca diinta ayaa dhibano u ah nimanka iyaga ah oo dhibaato xoogan ba ku haya marka calaa kulli xaal insha allah waa arki doonaa wixii kasoo korodho waan kasoo hadlaynaa marka puntland haddaan dib ugu soo noqono howlgalladii dhanka buraha calmisgaad ay ka waday meel wanaagsan ayay mataqaana ayay marayaan guulo waaweyn oo weliba aad u ballaaran way gaareen guulo aynan filaynin ayay ahayn guulaha iyaga ah oo ay lahaayeenba muddo dheer ama sanad bay ku qaadan muddo yar oo kooban ayay ku taxliiliyeen ay ku gaareen insha allah waxaan rajeynaynaa in guulo intaa ka weyn ay gaari doonaan marka aan usoo duceyno meel kastoo aan joogno insha allah ducada wax weyn bay mataqaana qabataa aan u duceyno aan la barbar istaagno in ilaahay uu guuleeyo nimanka xaqdarrada ku yimid ee dalka duulaanka kusoo qaadayna in ilaahay ka qabto iyagana